taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa uga degay ciidamada inay ku milmaan arrimaha siyaasadda dalka haatan ka taagan. Waxa maanta xarunta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kulan ku yeeshay saraakiisha ciidamada militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana kulankaasi shirgudoominaya taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage. Kulankan saraakiisha ciidamada militariga waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay amniga dalka, howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee gobolada ka socdo iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaala ciidamada qalabka sida uguna hortagi lahaayeen inuu xilligan qallaaso dalka ka dhaco. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay waxaana dhammaan ciidamada qalabka sida uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda isla markaana u sheegay cid gaar ah aysan u helin xilligan waqti xaadirkan uu dalka ku jiro. Taliyaha Odawa ayaa waxa ciidamada faray inay dalka ugu shaqeeyaan sida ay ugu dhaarteen, balse ay ka reeban tahay inay dadka isku haya siyaasadda ay la kala saftaan. Xilli uu jira khilaaf xooggan oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayuuna ku soo aadaya hadalka Odawa. Ugu dambeyntii taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in ciidamada dowladda ay xoojiyaan howlgallada lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee amniga dowladda halista ku ah ee gobolada dalka ka socda, waxaana bogaadiyay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Digniinta u diray ciidamada General Odawa Yuusuf Raage ayaa ku soo beegantay iyadoo uu jira khilaaf xooggan oo u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. waxaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maalin ka hor uu sheegay in ciidamada isaga ka amar qaadanayaan oo aysan jirin amar ay ka qaadan karaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu sheegay in waqtigiisa dastuuriga ah uu dhamaaday. General Odawa Yuusuf Raage waxa uu sidoo kale ugu baaqay ciidamada qofkii ka dhaga adeega hadalkiisa isla markaana baalmaro oo haatan la kala safta dhinacyada siyaasadda Soomaaliya waqtigan inay ka qaadi doonaan darajada iyo xilka isla markaana dalka iyo dadka sida ay ugu dhaartaan ay ugu shaqeeyaan oo mas'uuliyadda guud ee amniga dalka ay awood isugu geeyaan. Saraakiisha ciidamada qalabka sida kulankooda ayaa sidoo kale waxa looga hadlay arrimaha siyaasadda dalka ee xilligan kacsan, waxayna dhinacyada isku haya ugu baaqeen iyaga oo u turaya dalka iyo dadka inay ka waantoobaan wax kasta oo dhibaato dalkan u horseedi karo.